بسم الله الرحمن الرحيم waxaan marka ugu horeysa halka rabaa inaan uga tacsiyeeyo dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo dadka Soomaaliyeedba geeridii naxdinta lahayd waxasnimada lahayd naftii hurayaasha naftii halagaha uu ka geystay magaalada Gaalkacyo 19 bishan oo ay ku nafwaayeen saraakiil badan oo dawladeed iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan labada dawlad Puntland iyo Galmudug iyo shacab waxaan Ilaahay uga baryayaa intii ku geeriyootay halkaas oo shuhadada ahayd inuu naxariistii janno u siiyo eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen samir iyo iimaan u ka siiyo dawladaha Puntland iyo Galmudugna iyagana samir gaar ah ka siiyo maadaama ay u ahaayeen halbowlayaal runtii danaha ummadda Soomaaliyeed ka shaqeynayay tacsidaas kadib waxa maanta oo halka nagu qabsoomay shir laba geesooda oo dawladda Puntland iyo Galmudug ay ku yeesheen oo ay kala hogaaminayeen labadeena madaxweyne xubnana ka ahaayeen wasiiro iyo sanataro iyo xildhibaano ka soo kala jeeda labada maamul shirkaas oo runtii ahmiyad iyo waqti gaar ku soo aaday gundhigiisu uu ahaa sidii loo dardargelin lahaa hawlihii shirkii ka horeeyay lagu yeeshay Gaalkacyo dib loogu eegi lahaa wixii ka qabsoomay iyo wixii qabyada ka ahaa iyo xaaladda khatarta amni ee soo korodhay sida aragtimidaysan looga yeelan lahaa waxaan runtii isku afgarannay inaan nabadgelyada iyo horumarka gaar ahaan labada maamul iyo guud ahaan Soomaaliya ka wada shaqeyno waxaan u rajaynaynaa shucuubta Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay gaar ahaan labada bulsho ee ku kala nool labadan degaan dadaalkii faraha badnaa oo isdhexgalka iyo nabadda iyo horumarka iyo ka shaqeynta la dagaalanka argixisada meeshii ay ka wadeen inay hore u sii mariyaan waxaan sidoo kale iska wareysanay xaaladda dalku marayo oo runtii marxalad markii horena shirkii halka aan isugu nimid uu ka dhashay inay qabsoomaan shirarkii Dhuusamareeb 1 iyo 2 iyo 3 iyo kii xamar lagu gaaray intaba waxa saldhig u ahaa shirkii magaalada Gaalkacyo ku dhexmaray labada maamul ee Galmudug iyo Puntland oo u ahaayeen udub dhaxaad waxay haddana istusiyeen maadaama heshiiskii hore la gaaray 17 September meelaha qaarkood madmadow ka soo noqday haddana inay u istaagaan sidii ummadda Soomaaliyeed markii hore bay ugu taagnaayeen inay iyadana mar labaad u istaagaan sidii ay arrimaha jira wax uga qaban lahaayeen si dalka xasiloonidiisa iyo horumarkiisa loogu shaqeeyo nabadiisa loo xoojiyo doorasho la isla ogol yahay ay u dhacdo dhammaan dadka Soomaaliyeedna wax ku ool ugu noqoto waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo annagoo xilka uu nasaaran yahay xilqaan dheeriyana is saarnay kaashanayna waxgaradka iyo mas'uuliyiinta kale ee labada maamul ka tirsan iyo dhammaan dawladaha kale xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya iyo dawladda federaalka ah iyo cid walba oo runtii ka danqanaysa horumarka dalka iyo cid walba oo danaynaysa inay doorashadu si wanaagsan u qabsoonto inaan kala shaqeyno
sidii aan isugu soo dhoweyn lahayn una turxaan bixin lahayn haddii kala aragti duwanaan ay jirto waxaan ku kalsoonahay madaxweyne qoorqoor oo runtii markii horena kaalin weyn ka qaatay qabsoomidda shirarkaas iyo inta natiijadeeda maanta la gaaray waxaan rajaynayaa haddana runtii muddadii hadda u dambaysay xamar joogay ku howlanaa siduu arrimaha wax ugu qaban lahaa annaguna inaan gacan ku siinno howlahaas baaxadda leh hore ugu jiray annaguna waxaan ku kabno intii karaankeenna ah isu soo dhoweynta dadka Soomaaliyeed iyo sidii loo ilaalin lahaa xasiloonida hadda la haysto loogana hortagi lahaa cid kasta oo xasilooni darrada ummaddan u horseedaysa waxaan ku baaqaynaa meel kasta oo qalalaaso iyo dhibaatooyin colaadeed ay ka jiraan waayadan dambe waa laga leeyahay ay ka dhici karto in waan iyo is-afgarad iyo xal shucuubtaas iyo dadkaas meesha ku wada nool ay ka gaaraan waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa kala aragti duwanaad siyaasadeed inayna colaad sokeeye aysan dhalin oo mar walba aragti duwanaanta siyaasadeed lagu xaliyo wada hadal iyo wadooyinka doorashada qorigu inuusan xal noqon caadifadana la xakameeyo waxaana bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto u rajaynaynaa guul iyo horumar intaas ayaan anigu uga baxayaa waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha oo runtii maanta gaalkacyo aan marti ugu ahay mar hadduu isagu ayaantan halka joogay gaalkacyana waxaan u rajaynayaa labada maamul oo mas'uuliyiinteeda ay joogaan waxaan uga mahadcelinayaa shaqadii wacnayd ee muddadii u dambeysay ay wada hayeen waxaan u sii rajaynayaa inay halkaa ka sii wadaan wixii dhacayna ay niyad jab aysan keenin in laga qaado dhiiranaan iyo dardargelin waxaan rajaynayaa insha Allah wax walba inay sideeda ku soo hagaagaan ku soo dhamaadaan madaxweyne soo dhow bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni golayaasha labada dowladood wasiirada iyo xildhibaanada senatarada iyo xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ka jooga dhammaan mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiinta kale iyo ka soo qayb galay meeshan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib marka hore waa mahadcelinayaa madaxweyne Saciid waxaan rabaa inaan halkaan isaga wada tacsiyeyno geeridii ku timid dadkii waxgalka ahaa taliyayaashii iyo saraakiishii iyo ciidamadii iyo mas'uuliyiintii ka kala tirsanaa labada maamul ama labada dowladood ka tirsanaa guud ahaan waxaan uga tacsiyeynaynaa Soomaali oo dhan maadaama ay ahaayeen saraakiil iyo mas'uuliyiin qaran gaar ahaan qoysaskii iyo eheladii si gaar ahaan uga tacsiyeynaynaa intaas kadib sida saaxiibkay madaxweyne Saciid sheegay halkan maanta waxaan ugu qabsoomay shir ku soo aaday waqti aad iyo aad aan isleenahay waa muhiim u ahaa dhinaca amniga markaan ku hormaro horay ayaa amniga iyo iskaashigiisa iyo ka wada shaqayntiisa iyo in cadawga argagixisada meel looga soo wada jeesto ay u ahayd shaqo socotay oo hore loo gaaray maanta waxaan uga hadlaynaa waxay ahayd dardargelin iyo inaan ka jawaabno isku dayada iyo dhagarta ay guud ahaan Soomaaliya ay kula kacayaan argagixisadu gaar ahaan labada dowladood ay kula kacayaan taasna horena meel fiican bay u joogtay haddana kalsooni baan ku qabnaa insha Allah inay heli doonaan wada jirkeena jawaabta ka timaada si wada jir looga howlgalo waxayna leedahay farsamooyin iyo howlo ay hay'adaha amniga u gaar ah sidoo kale inaan wax walba oo argagixisada gacan sii kara aan dadkanaga iyo deegaanadana kala hadalno laga baraarujiyo way ka mid tahay qaladaha yararka iyo waxyaabaha ay ku soo gabadaan ama ayaguba ay gacan ka geystaan dadka inay isku diraan si ay u gaaraan waxyaabaha ay qoolayaan iyo falalkooda waxashnimada ah
sidoo kale waxaan maanta halkaan uga hadalnay arrimaha doorashooyinka iyo kala duwanaanshaha ka soo baxay taasna waxaan meel isla dhignay inaan ka howlgalno ka shaqeyno sidaan horeyba asaaskeedii iyo bilowgeedii uga wada shaqeynay guulna looga gaaray mar walba doorashadu waxay leedahay waxyaabo la socda oo aan ka harin waa tabashooyinka iyo kala duwanaanshaha tan waxay leedahay hadda muhiimad gaar ah ay leedahay aragti gaar ah ay leedahay dhinacyada oo dhan inaan hawsha ayada ah si dhaqso ah ugala shaqeyno saaxiibadeena kale ee dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale oo tabashooyinku ay ka jiri karaanba inaan dhammaynteeda aan ka shaqeyno aad baan isku soo dhoweynay aragtiyo aan isleenahay insha allah saaxiibadiin waa u gudbin kartiin oo waa lain kala shaqeyn karaa oo waa lagu ku dhammayn karaana waa kaleena waxaan ka codsanaynaa uguna baaqaynaa dhinacyada oo dhan in laga wada qayb qaato siday ku dhammaan lahaayeen doorashadana si habsamee lagu geli lahaa waxyaabo mar walba ama dhinac tabto ama si gaara loo dareemo way jiri karayaan waxaa aad muhiim u ah inta badan inaan u tanasulno ama loo tanasulo ama la ogolaado maslaxada caamka ah iyo inay doorashadu noogu dhacdo si xalaal ah taana waxaan rabnaa inay gacan nagu siiyaan dhammaan dhinacyada oo dhan ka codsanaynaa guud ahaanna ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa in talooyinka iyo qof waliba waxa uu geysan karo uu dhinaca ku biiriyo wanaagga marnaba aan lagu darin ama aan laysdhihin dhinaca wax ku sii adkaan karaan ka shaqee qof walba inuu ka fogaado taas oo u leexdo ama uu miisaankiisa ku daro inay doorashadu si xor iyo xalaal noogu dhacdo tabashooyinkana xalkooda uu qayb ka noqdo taana ummadda Soomaaliyeed meel kasta dhinac walba ugu baaqaynaa insha Allah waxaan kalsooni ku qabnaa in ay gacan lagu sii doono inay saa ku dhamaan doonto inay wanaagga laga wada eegi doono sidii horeba ay u soo guusha lagu gaaray ama doorashada heshiiskeedu ku dhacay waxaan dhowraynaa lagu dhaqmi doonaa heshiiskii 17 September lagu gaaray dhamaadkiisu ka dhacay Muqdisho wuxuu reebna 1 iyo 2 iyo 3 lagu soo maray iyadoo heshiiskii la dhowrayo ayaan kala duwanaanshaha iyo tabashooyinkana ay tahay ujeedadeenu inaan ku dhaxalino taasna waa codsigaas iyo baaqaas aan ka diraynaa guud ahaan dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay gacmaha aan isqabsano horena aan u soconno wax kasta oo wanaaga na gaarsiin karana aan ku dhaqaaqno gaar ahaan reer Galmudug iyo reer Puntland wada jirkeena wada shaqeynteena iskaashigeena dhammaan hay'adaha dawladdu ay isku xiran yihiin aan horay u dhiirigelin hore u sii wadno wiil weyn oo runtii la gaaray bay noo tahay Soomaaliland dambe u tahay aad iyo aad walba ugu mahad celinaynaa dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay ugu mahad celinaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh bismillahir rahmaanir rahiim maanta ay taariikhdu tahay 24 bisha December 2020 madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ee Galmudug iyo Puntland mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo mudane Siciid Cabdullaahi Deni ayaa shir gudoomiyay kulan labada maamul ku dhexmaray magaalada Gaalkacyo 24 maanta oo ay bishu tahay December 2020 shirka ayaa si guud looga wada hadlay xiriirka labada dawladood iyo xaaladaha siyaasadeed amni iyo horumar ee dalka Soomaaliya si gaar ah waxa diiradda loogu saaray sidii Galmudug iyo Puntland ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha amniga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada adkeynta nabadeynta bulshada iskaashiga horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha doorashada dalka Soomaaliya ee 2020 shirka waxa lagu gaaray qodobada soo socda shirku waxa uu ka tacsiyeeyay oo tacsi u diraya dhammaan intii ku dhimatay qaraxii argagixisada geysatay 19 December 2020 ka dhacay magaalada Gaalkacyo gaar ahaan saraakiishii mas'uuliyiintii iyo shacabkii ku dhintay in Galmudug iyo Puntland ay iska kaashadaan xoojinta amniga gudaha labada maamul iyo la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo Daesh
3 in la adkeeyo nabadda iyo nabadaynta bulshada ka tirsan Galmudug iyo Puntland. 4 in la dhiirigeliyo lana xoojiyo iskaashiga horumarinta dhaqaalaha, isu socodka ganacsiga iyo iskaashiga dhismaha hay'adaha dawliga ah. 5 dawladaha Galmudug iyo Puntland waxay markasta diyaar u yihiin dadaal kasta oo loo dhan yahay ee lagu gaari karo hirgelinta doorashada Soomaaliya 2020-2021 sidaa darteed iyadoo la dhowrayo heshiiskii lagu gaaray 17 Sebtembar 2020 magaalada Muqdisho, dawladaha Galmudug iyo Puntland waxay ku heshiiyeen inay ka wada shaqeeyaan sidii ay isugu soo dhaweyn lahaayeen dhinacyada ku kala aragti duwan hanaanka qabsoomida doorashada. 6 shirku waxa uu ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in la ilaaliyo midnimada, amniga iyo xasiloonida dalka lagana fogaado wixii keeni kara xasilooni darro iyo khalkhal amni. ugu dambeyn 7 shirku waxa uu ka mahad celinayaa taageerada beesha caalamka ee dhismaha dawladnimada Soomaaliya, arrimaha bini'aadantinimo iyo horumarinta dhaqaalaha. shirku waxa uu ugu baaqayaa beesha caalamka inay gacan ka geystaan qabsoomida doorasho. dhammaad aad iyo aad baa u mahadsantiin.